kulanti wacan iyo galabnimo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa raadiyo xurriyo codka shacabka Ogaadeniya oo aad ka dhageysataan mowjada gaaban ee 19 mitirban geeska Afrikada barina saacadu haatan waa 5:15 galabnimo waxaa kaloo naga dhageysan kartaan baraha internetka aan ku leenahay iyo waliba YouTube-ka ciwaankiisu yahay www.youtube.com/user/radio barnaamijyada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo waxaa kamid ah warkii caalamka oo aan idinku hayno qodobo ay kamid yihiin gudoomiyaha Jowxo oo waxaan sal iyo raatoona lahayn ku tilmaamay warar ay gumaysigu faafiyeen oo sheegaya in ay Jowxo iyo gumaysigu ku jiraan wada hadal ciidamada Jowxo oo cagta mariyay cutubyo ka tirsan ciidamada gumaysiga ururka hooyooyinka Ogaadeniya oo soo gabagabeeyay shirkoodii iyo qodobo kale jaliilo wallahayo بني نعبي أنا جدي بحي نفط واحد على ديو جبهتي بقولي ugu horreyntii aan idaacadeena ku furanno aayadihii quraanka kariimka ahaa ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله inagu anfice waxa inta inoogu dhamaaday aayadihii quraanka kariimka ahaa waa maalinimo isniina 3 bisha shanaad 2010 barnaamijyada kale aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo ayaa waxa kamid ah jaaliyada Ogaadeniya ee wadanka South Africa oo ka qayb gashay maalinta shaqaalaha adduunka oo lagu qabanayay magaalada Port Elizabeth waa maxay farqiga u dhaxeeya jahliga saboolnimada iyo gumaysiga qodobo kale iyo suugan halgameedii ayaan iyana idin haynaa idaacada galabnimo waxa ay kala qayb qaadanaya saaxiibada Cabdinuur Sheekh Maxamed iyo Maxamuud Sheekh Cali marka horese war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray iyo Maxamuud Sheekh Cali wuxuu maalmahan waday maamulka gumaysiga Addis Ababa warar aan sal iyo raatoona lahayn oo ah in jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya wada hadal kula jirto gumaysiga Itoobiya waxaana dacaayadahaas iyo been abuurkaas ku weheliya kooxo u adeega gumaysiga oo habab kala gedisan bulshada ku dhex jooga dacaayadahan raqiiska oo ay Jowxa marar rabeenisay ayaa waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay gudoomiyaha jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya Admiral Maxamed Cumar Cismaan runtii waxaad moodaa wax yani barabagaan aad iyo aad loogu talagalay in doorashada Itoobiya ku soo socota yani looga faa'iideysto ayaa maalmahan kala iyo muddadii dambe oo dhanba la waday waa dhaweed sidaad la socoto waa kii ururkii la oran jiray اتحاد الإسلامي واجه الأورد كده كبعدين الصومالي قلب يطلع بحي وكوي مالن دوتة حرودين إثيوبيا يسوديبين يجي يو إثيوبيا لبضوا وحي وياهم وضعوا أي آدي آدو سوء العلنيان إن أي أون لف وضع هذا الصعوبة أون لفانيقا وضيق هدية أما قدومية هدية حتى كهر واحد بلمان شيء وضع هذا الوحان إثيوبيا وقت كان هذا لا لأنه ما تشوفته هرينا وما أنا وذا قلين
laga bilaabo waagi 1998 oo aanu mar isugu nimin meel qabri daara korkeeda waqtigaa ka bacdi wadahadal lama gelin haddana nooma socdo hase yeeshee waxaanu cadaynaynaa inaanu diyaar mar walba u nahay wadahadal rasmi ahoo yani markhaati lahoo la og yahay mar walba diyaar baan u nahay taana ilaa hadda lama hayo marka waxaas waxay ka jiraan ma aha waa arrin mataqaanaa barabagaana oo loogu talagalay mataqaanaa doorashada Itoobiya in looga faa'iideysto dagaalada lagaga xoreynayo wadanka Ogaadeniya gumaysiga Abyssinia ayaa si xawli ah uga socda wadanka Ogaadeniya ciidanka xoreynta Ogaadeniya ayaa weerar qorshaysan ku qaaday ciidamo gumaysi oo ku sugnaa duleedka Yoocaale waxaana ciidamada geesiyiinta ee xoreynta Ogaadeniya gabi ahaanba cagta mariyeen ciidamada wayaanaha oo kala firxaday kadib markii ay u adkeysan waayeen xabadda kulul ee ciidanka xoreynta Ogaadeniya waxaana halkaa lagu geystay khasaare xoog leh ciidamadii wayaanaha oo la xaqiijiyay inay xarada kaga carareen 20 askari bakhtigood karinka iyo golhowley oo magaalada Dhagaxbuur 15 kiiloomitir u jira ayaa waxa weerar ku qaaday ciidamada xoreynta Ogaadeniya maxaysata ka tirsan ciidamada gumaysiga Itoobiya siday wararku sheegayeen ciidamada gumaysiga iyo dabaqoodhiga hawaarin loo yaqaan ayaa deegaankaas u tagay inay dadka beeralayda ah ee meelahaas degan soo xidhxidhaan xoolahana ka soo boobaan waxaana la sheegay in askarta cadawga iyo dabaqoodhigoodu muddo 4 maalmood ah ay shacbiga halkaasi ku dhibayeen waxaana la warinayaa in ay dabeen nin aanan weli helin magaciisa oo saddexaan oo ay meyd ahaan uga tageen balse Ilaahay ka badbaadiyay dilkaas dabitaanka ah sidoo kale waxay ciidamada nacabka ay ka qasheen dadka deegaankaas xoolo aad u fara badan ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo had iyo goorba u taagan difaaca iyo xoreynta shacbiga Ogaadeniya ayaa ku ekeeyay weerar qorshaysan waxaana halkaas ka dhacay dagaal faraha lagaga gubtay xabadda iyo daryaanka la isku adeegsaday ayaa laga maqlay magaalada Dhagaxbuur oo aan saa uga fogeyn halka la isku farasaaray ciidamadii gumaysiga iyo dhididowrkoodii ayaa loo geystay jab iyo halaag waxaana la xaqiijinayaa in ciidamada gumaysiga halkaas lagaga dilay inta bakhtigooda la arkay 25 askari dhaawacuna inta ka badan yahay asbuucan dhexdiisii waxaa shir ballaaran oo si wanaagsan loo soo abaabulay in muddo ahna laga shintirinayay isugu yimid ururka hooyooyinka Ogaadeniya ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo nawaaxigeeda ee dalka Mareykanka shirkan oo lagu qabtay hoolka shirarka ee Sabathani Community Center ayaa ahaa mid si weyn ay uga soo qayb galeen hooyooyinka Ogaadeniya ee ku nool gobolka Minnesota ee carigaasi Mareykanka gabagabadii shirka ayaa ururka dhalinta Ogaadeniya ee North America ay ku soo bandhigeen bandhig fareed heer sare ah wuxuuna shirku ku soo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan halkaad warkaasi kala socotaana waa raadiyo xorriyo codka shacbiga Ogaadeniya wararka ka imaanaya magaalada Dhagaxbuur ayaa sheegaya in maalmahan ay sii siyaaday dhibaatada ay ku hayaan gumaysiga shacabka magaalada Dhagaxbuur wararku waxay intaasi ku darayaan in 3 habeen u dambeysay ay ciidamada gumaysiga ee jooga magaaladaasi dhowr qof ay siyaabo kala duwan ugu dhexdileen bartamaha magaalada dilalka ay ciidamada gumaysigu ka wadaan meelaha ay joogaan ee shacabku ku nool yihiin sida Dhagaxbuur iyo dhammaan gobolada Ogaadeniya ayaa noqotay min ay caadaystaan tikreegu isla markaana qofkay doonaan intay habeennimadii la baxaan ay maalinnimadii xigta ama dhowr maalmood kadib meydkiisa soo dhigaan bartamaha magaalooyinka magaalada Jigjiga wararka laga helayo ayaa sheegaya in habeen hore ciidamada tikreegu rasaas ku fureen baabuur waday alaabo raashin ka mid yahay oo u rarnay dad shacab ah baabuurkan ayaa xilligay tikreegu xabadaynayeen soo galayay magaalada Jigjiga isagoo ka yimid dhanka wadada jinacsanay sida ay ku waramayaan dadka ka agdhawaa meesha lagu xabadeeyay baabuurka ayaa sheegay in ay maqlayeen rasaas xoogan iyo baabuurka alaabta waday oo ay caydhsanayaan dhowr askari oo watay gaari qabaal ah halkaas oo ay ciidamada gumaysiga Itoobiya markii dambe rasaas xoogan ku fureen baabuurkii halkaasna ay ku dhaawaceen wadihii baabuurka iyo hal qof oo dhinaca dambe ka fuushanaa baabuurka mahadsanid kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Cali oo inala socodsiinayay war wixii dalka ayaa dibadda inaga soo gaaray
kudorsaday garaabo dumiyaan arkaa igu socodalaado gumaysigala dariso hadda meelahayno dalay baan arkaa